السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي ملك استاد وكجوكتان وسيكي وإذن الله اسكو سو نقد وناكسن أو وليبا حيسلا waxaan ku rajeenayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay walibana maalintaadu ay aad u fiican tahay waayahay maanta mowduuca aan rabo inaan ka hadlo waxaan u kala dhigi doonaa saddex qodob. qodobka koowaad soo dhaweyn, qodobka labaad fariin aan u diraayo dadka aniga igu xiran qaasatan CK family. dadku iskuma jiraan, dadka igu wada xiran iskuma jiraan, waxaa jiro dad qaas ah aynu laabta iskala soconno hal magacna waa leena waxaana la yiraahdaa CK family. fariin aan u diraayo CK family iyo qodobka saddexaad oo ah fariin aan u dirayo dhalinyarada doonaya sideedoo kale inay caan noqdaan qaasatan ku haminaya inay noqdaan YouTuber. saddexda qodob ayaan halkan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. qodobka koowaad ayaan u gudagalayaa oo ah soo dhaweynta. haddaba yaanu soo dhaweynaynaa sidaad ogtihiin ba anigu waxaan ka tirsanahay bahda YouTuberada. waliba waxaa la dhihi karaa waxaan ku jiraa 10ka ugu horeeya ee ugu tunka waaweyn YouTuberada Soomaaliyeed mid ka mid ah. waxaan leeyahay magac ii gaar ah iyo team ii gaar ah. teamkaas oo aan u bixiyay CK family oo macnaheedu tahay in aynu midna. haddaba anigoo ku hadlaya afka CK family waxaan halkan soo dhaweyn ballaaran ugu sameynayaa oo YouTube-ka bahda YouTube-ka ku soo biirtay dumaashidin X oo ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed. maadaama anigu ka mid ahay 10ka YouTuber ee ugu tunka waaweyn waliba aan dhihi karo CK family waa kuwa ugu horeeya magaca YouTuber xilligan la taagan yahay oo aynu nahay number 1 ayaa waxaan leeyahay maadaama aynu nahay dadka kursiga ku fadhiya xilligan dumaashidin X-na ee ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed ayaa waxaan doonayaa halkan inaan codsi uga diro anoo ku hadlaya afka CK family in aynu soo dhaweyno dumaashidin X oo ku soo biirtay bahda YouTuberada Soomaaliyeed oo aynu anaga ka mid nahay. maadaama kursiga ugu sareeya aynu anaga ku fadhino waxa waajib inoogu ah in aynu ku soo dhaweyno bahda YouTuberada Soomaaliyeed. waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa anigoo ku hadlaya magaca CK family in aad janaalkeeda subscribe u saartaan. waxaana ku qoran Manaal Beeldaaje. waxaana janaalkeeda soo dhigi doonaa fiidiyogan hadda idin hor fadhiyo qaybta hoose ee commentiga bidna waa ku qaban doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. qodobkayga labaad waxaan halkan fariin uga dirayaa CK family oo aan leeyahay waxaan doonayaa maanta halkan inaan tusaale uga noqdo dhalinyaro fara badan aniga oo og marxaladda xilligan taagan, aniga oo og maanta social media meesha aan ka taaganahay, aniga oo og hooshayda ama hadalhaynteeda social media sida ay ka tahay, aniga oo og in farqaha lagu dhagan yahay, aniga oo og in CK family ay ii dagaalamayaan idinkoo dhanna budad aad sidataan ayaan waxaan idinka codsanayaa anigoo wiilkiina ah gobanimo wax la yiraahdana ku hadlaya in horta budadka aad dhigtaan. CK family mid baa idin sheegaya waxay tahay gobanimada anigu waxaan u aqaanaa qofka dhaqankiisa. gobanimada iyo nasabnimada la sheego anigu uma aqaano siday Soomaalidu tilmaamaan qabyaalada iyo waxa. anigu waxaan u aqaanaa gobanimada iyo nasabnimada la sheego qofka sida uu u dhaqmo. aniga oo raacaya wada la raaca wadada ugu wanaagsan ee ah wadada gobanimada ayaa waxaan idin leeyahay saxanka adiga aad wax ku cunto waxa uu kaaga baahan yahay xushmad. iska daa qof aad ceysh soo wada cunteen nolol aad soo wadaagteen. haddaba waxaan idin leeyahay waxaad ku mahadsantihiin aniga sidaad iigu dagaalantaan, waxaad ku mahadsantihiin kalgacaylka aad ii muujisaan, waxaad ku mahadsantihiin sida aniga dadka xumaanteeda ku dhiirada aad qalqalka u gelisaan, waxaad kaloo ku mahadsantihiin sida aniga markii aan qaldanahay ama gaf iga dhaco ama dhiiqo lugaha aan la galo sida luuqa intaad igu soo gashaan aad talooyinka wanaagsan ii siisaan. aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa in dad wanaagaas uu ku dhan yahay aan run ahaantii u ahay role model kursi ay ii dhibteenna aan ugu fadhiyo oo aan hool u hayo. haddaba waxaan idinka codsanayaa aniga oo og waxaan idin leeyahay marxaladda taagan aniga oo og ayaan waxaan idin leeyahay budka gacmaha aad ku haysaan inoo dhiga waddo ayaan inoo jeexayaa. waddadaasna magaceeda waxaa la yiraahdaa gobanimo. mar kale ayaa idinku celinaya waxaa laga yaabaa mararka qaar inaa ilowdid wadada wanaaga
ay duruuf kuu geyso mararka qaar waxaa dhici karta duruuftu inay kuu geyso inay kaa dhigto qof aadan adiga ahayn haddaba waxaa idin leeyahay nasabnimada la sheego iyo gobonimada la sheegaba waxay ku jirtaa qof aad shalay cays soo wada cunteen in aad u haysid ixtiraam wax kasta oo qofkaas qalbigaaga ugu jiray muhiimaddu waxa ay tahay qofkan haddii aad cays gacan soo wada geliseen iska daa qof aad nolol soo wada marteen in aad u haysid ixtiraam marka ay noqoto bulshada dhexdeeda qalbigaaga waxa ka guuxaya adiga qaas ku yihiin balse nasabnimada la sheego ma aha tan qabiilka ee waxa ay tahay qofka aad cays soo wada cunteen aad nolol soo wadaagteen inaad noqotid qofka qof wanaag u haya waxanina waa youtube-ka lagu sheegayana aniga hadda idin leh qofka ugu sareeya ayaan ahay youtuberada Soomaaliyeed ee magaca CK Family ku hadlaya waxa laga yaabaa isla bariba youtube-kan inuu hawada ka baxo no one knows inta uu jiraayo maadaama wuxuu waxaas yihiin haddaba haddii dumaashidin X ay ku soo biirtay bahda youtube-ka inaguna aynu nahay kursigan kuwa ku fadhiyay iyada ugu soo horeeyay waa inaynu ku soo dhaweynaa ukaadi inta aanan ka bixin qodobkayga labaad ayaa waxaan idin leeyahay hadalka meeshan aan usoo fariistay oo gabi ahaanba mid aan la iga sugayn buuqa iyo sawaxanka iyo social media sida la ii hadal hayo hadalkaan la soo fariistay boqolkiiba 90 maaha mid la iga sugayay sidaa ogeed waxaan idin leeyahay cabsi halkan ima soo fariisin aga jugleen halkan ima soo fariisin wax dambe oo aan ka baqayo oo aan isleeyahay waxa effect ku geysanayna halkan ima soo fariisin oo hadalkan igama yersiine waxa iga yersiisay hadalkan gobonimo iyo qof ahaan qofka aan ahay oo aan ka tarjumay mar kale ayaan waxa idin ka codsanayaa aniga oo qodobka labaad ka baxaya CK Family-na la hadlaya warnimayo meesha nagu caabaanina cimaamada naga ridina X dumaashidin sacab iyo farxad hal lagu soo dhaweeyo waa tahay halka waxaan uga baxayaa qodobka labaad oo aan ku soo gunaanaday in aan idin raado waxaan ka hadlay qof ahaan qofkaan ahay oo aan ka turjumay cabsi igama hadalsiin khiyaarkayga ayaan halkan ku soo fariistay oo aan go'aankan ku gaaray haddaba waxa ay dhiman qodobka saddexaad oo fariina u dirayo dhalinyaro adiga idaawanaya haddii aad doonaysid in aad noqoto qof caan ama youtuber sideyda ama aan ku ahayba aniga role model adiga idaawanaya ee CK Family ka tirsan ama aan ka tirsaneen oo janaalkan ku xiran ee muuqaaladeeda daawada ee CK yaqaana haddii riyadaadu ay tahay in aniga aan role model ku ahay oo aad noqotid sideyda oo kale waxaan ku leeyahay waxa dhici kara xiliyada qaar marxaladahan oo kale inay ku soo maraan qofba marba wax laga qoraa maanta waxaan doonayaa in ay iga qortaan halkaas mid oo wajiga maanta meeshan aan ku soo fariistay iyo muuqaalkan aan ka hadlayo oo gabi ahaanba inta badan bulshadu ayaan sugaynin in CK sidaan u hadlo ayaa waxaan ku leeyahay hadiiba aan ku ahay role model sida xumaanta aan saga dayano inaan wanaagana saga dayano tusaale qof baa muuqaal soo duubaya hadda sida wiilka maskiinka ee socdaal lagu sameeyay oo kale oo aan muuqaalka uga hadlay dadkii sameeyay heesaa uu leeyahay ee uu soo saaray markii heesiisa ay daaraan TikTok-ga in indhaha ay kala qalluuciyaan oo kale ay sameeyeen sida la isaga dayday oo hal qof intuu bilaabay 800 oo qof oo dhalinyaro ka badan ay challenge-ga u sameysay ayaa waxa idin leeyahay maanta tani haydin ahaato hadiiba role model aan ku ahay challenge always mid xasuusno haddii noloshaada ay soo marto xiriir walaaltinimo xiriir guur whatever weliga mid xasuusno weelka aad wax ku cuntay inuu ixtiraamkaaga baahan yahay weelka aad shalay wax ku cuntay inuu weli ixtiraamkaaga baahan yahay inta ayaan uga baxayaa muuqaalkayga war hooy Soomaaliya waxaynu ku noolnahay waa adduun adigaba tomorrow lama oga inaad saarnaanaysid waxana waa YouTube no one knows tomorrow inaan ku soo hor fadhinayo isagaba qadka uu ka bixi karo haddaba waxa idin leeyahay hooleeni ha noo socdaan farxadeeni ha noo socoto waxaan kale halkan uga mahad celinayaa inaan soo xasuusto waa ay fiican tahay dadka janaalkayga ku soo biiraya wadadii guusha sanka ayaan u saaranahay riyadan wax badan ayaan ku soo riyoonayay riyadan ku soo riyoonayay anigoo af Soomaali ku hadlaya in aan ku taamo 1 million subscribe inaan galo maanta sanka u saaranahay come on guys let's go riyadan waad igula jirteen rumeynteeda qayb ayaad ka aheedeen in yar ayaa noo dhiman waan guuleysanay come on
Kaya